degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaa si mug weyn leh u saameeyay fatahaadda webiga Shabeelle. Kumanaan qoys ayaa ka barakacay guryahooda iyadoo fatahaaddu ay baabi'iyeen dhul beereedyo gaaraya kumanaan hektar. xaafadaha ugu daran ee fatahaadda biyuhu saameeyeen waxaa ka mid ah Aytiro, Baalguri, Raqayle, Siigaale, Damaley, Daafeyle iyo qaybo ka mid ah tuulooyinka. fatahaadda webiga sanadkan saameyn gaar ah ayuu ku yeeshay degmada Afgooye. fatahaaddan waxay ugu duwan tahay tii hore, webiga labada dhinac ayuu ka fatahay, sidoo kale waxa uu saameyn ku yeeshay khasaarana u geystay beeraha iyo matooradii lagu waraabinayay. shacabka ku nool degmada Afgooye ayaa xaalad dayro ah ka muujiyay iyagoo dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ugu baaqeen in sida ugu dhaqsiyaha badan soo gaarsiiyaan gargaar degdeg ah. waxaan siin ku codsadaanee dowladda federaalka Soomaaliya iyo Koonfur Galbeedba waxaan baaqan ka jeesadaanee walaaliintaayna muslimiinta ah inay noo soo gaaraan waayo waxaan nin sababtay in oo u nimacnaa miniyaalkayna ka haajirno macnaa waxaan haddan ka dhex jirna biyo waaye biyahaana waxay u baahan yihiin dhilmaashaynin sheeneen biyanka jirne barakacawni qabadeen dowladda federaalka Soomaaliya iyo Koonfur Galbeedba waxaan baaqan ka jeediyaane si degdeg inay ninka soo gaaraan waa kana alaabtaayna waa kana intay nin saaran yihiin miniyaalka raarda tiyoonka dhisani miniyaalkayna biyo ku jiraan war waxaan haddan ka dhex jirna biyo waaye marka waxa waaye dowladda Soomaaliya waxaan jeedisadaanay baaq oo walaaliintaayna si degdeg inay ninka soo gaaraan walaaliintaan oo muslimiinta ah waxaan ku codsadaanay Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalka waxaan ku codsadaanay inay soo gaaraan ling maanta wax nasiib ma jirto miniyaalka noo dudumay una waan rabnaa raashin iyo kaas waxa ninka si darana guryaalka biyihiinka dhex jirna magadna rafaasin dhamaantan lin shag aadooy malaha dhilmaansho nu bogoyte udurka meeshan ka dhaladi ma dhow magadna walaaliyaal waxaan siin ku codsadaanay si degdeg oo degdeg ilaahay gacanta wax ninka soo salanta miniyaalkaana inaan ka dhisano aan jecelnay biyaha weey maanta aan ka dhex jirnay dhilmaansho nin dheer ilman haan dawooshin haan dhibaatan waligaan man qabsana walaaliyaal waa hantiin isiina walaalintiin waa haana waay ilaan toon ka sakooda insan siin toogaana wax nin qabataan jecelna hawee maalin biyaha aan ka dhex jirna rafaad adduunyo manin yar baayo nin si dheer dhilmaansho nin si dheer waxaan jecelnaa Koonfur Galbeed waxaan jecelnaa walaalintiin anna wax nin qabataan ceel bawaakan kano oo dhagaxan had cunugaan igu shubi waa meesha biya ka soo badbateesmi dhagaxa lagu shubi masqushay dhamaanteed waa dunti waxaan ku asal lahay nool soo gargaaro oo gargaarka Ilaahay neel raacsado oo deeq iyo taay waxba Ilaahay nool ugu soo deeqo saasa ununkana ku codsahayna wala dhibaysan yahay ilmihii dhan gurigay ku jiraan wax cuntadii wax noo soo shaqeeyay male ilmihii biyo ku xiran yihiin dhamaantood waa ku guriga iskula jirnaa si subax u baryo gaxbado hadii halno koobko hadii halno u shimaan meel laga shaqeysto malaha walaalahayna waxaan siin ka codsadaanee dhibaatada una ka jirna ma sahlana dhibaatada una geegan baahi mana hayto galadi tacbadaase macnaha iska filanta laakiin amar Ilaahay sheeni iyana haysada amarkan Ilaahay sheeni waxa waahay waa fatahaadan webiga walaaliyaalkayna waxaan siin ka codsadaanee macnaha biyahan had aan guriga aan leeyahay guriga aan leeyahay aragoo u saytaan marka gurigii ka qaxni ilmoogii ka wadni banaan injeeyna joodariyaashayna dhan biyahay ka dhex jiraan marka dhibaata manin sahlana waxaan siin ka codsadaanay webigan hor Maxamed Siyaad Barsiis weel jiri in la weelo ileen arjana wala dhika jiri oo webiga la qashin bii jiri geedan siis undumi ka dhex jira aliyaalo waxaan siin ka codsadaanay jidkan webiga inaas biisaan oo duubataan gacmaha isqabsataan ununa siin la jirna intaas aan siin ka codsadaan beeroogayn waa kay biyo ka jira oo ambihi iyo qudaartii ka kooyi jirtay hadda wax ka kooyaw ma jiro biyo jiifa geedkiiba inaas dumo bololo ka absee lama goor ya soo galeen maanta lama way sanadkan lama way oo biyahan sidan soo naqdaayaan guryahaas caaqibay leeyina hadda ii koow iyo dhismo inaas na garab qabataan walaaliintaayna muslimiinta iyo jaaliyadan oo maartay may digil iyo mirif la meel bas jiro inay gacmaha isoo qabsadaan oo hooshan niila qabadaan sidan rabne walaalahayna Koonfur Galbeed waxaan ka baahanaa inay wax qabad qeyr qab inay Ilaahay ninka sakhira idinkayna aragoytaan biyaha dhatiyo inaan wax ka dhax karsadooyno oo qolkayna oo skan ay aan siin sheegoy Koonfur Galbeed guriyaashayna inay wada dhisaan oo dhilmaanshadani aamoyto oon dhibaataysan aan ku codsadaane saanan biyo lan ka dhax jire
maanta biyahan intiin ka jira 15 waaye 15 beri oon ilma agoon aan ka haayo oon meel aan dejiyo aan la hayne gurigiina sidoo biyo dhibaatada ay haysata alaabta in ka jirta ilmihii hadda waxaan siyaahota ma haysan hadda maanta oon dabka aan ka shido guri dadoo aan rooge rafaadsan guriyaashaydan biyaha ka buuhan guri ijaar aan raasadi 12 cunug oo yatiin ay guri siye rafaadsan wallahi ko jiridayaashay guriga in ka jiraan gurigiisis oo nagadi hadda ma go waxaan aan baahan yahay horta gurmada hadda awlaadii waxaan dab aan ka shido guri ijaarkii wixii iskiin ka dhiibi lahaay aan hadda aan baahanay walaalahay maanta waxaan ka codsaday hadii wali in qabadayaan alxamdulillah isna allah siin soo dhiibo ilaahay aan siin bariye waxaan maanta meel aan ka hooyana taa ma haysan